السلام عليكم ورحمة الله. برنامجka maanta waxaan ku soo qaadan qabiil aan arki karin midabka buluuga iyo weliba daraasado laga qoray magacyada ay Soomaalidu midabada u taqaan. Balse marka hore, maxaa keenay in midabka buluuga laga waayo xadaarado kumanaan sano ka hor jiray oo ay ka mid yahaayeen Greegi, iyadoo la soo wariyo in qoraalladii ka haray aan lagu arkin midabka buluuga. Greegi kaliya maahane waxa arrintaasi la qabaa qowmiyado badan oo Soomaalidana lagu tiriyo inay ka mid ahaayeen. maadaama Soomaali badan ay midabkaas u taqaano buluug oo ah erey af Ingiriiska laga soo qaatay. Daraasado jaamacadeed oo wax ka qoray midabada Soomaalidu taqaan ayaa ka hadli doona. Balse marka hore maxaa keenay in midabka buluuga laga waayo luqado badan ayaa waxaa lagu fasiray in marka u horeysa oo ay luqadii hana qaadayso midabada ugu horeeya ee diiwaan geliso ay yihiin cadaanka iyo madowga oo ka tarjumaya iftiinka iyo mugdiga. Luqad walbana laga helo midabadaas. waxaa soo raaca midabka guduudka ama casaanka oo lala xiriiriyo khatarta ama dhiigga, iyo weliba midabada cagaarka iyo huruudda ama jaallaha oo khudaarta iyo miraha qaarkood lagu arko, tilmaamana hadday bisayl ama ciriin yihiin. Haddaba haddii midabadu soo laalaabtaan oo waxyaalo kala duwan lagu arko midabadaas ayaa waxaa caadi ah inay luqadda soo galaan. Laakiin midabka buluuga ayaa isagu ka duwan midabadaas kale ee aan horey u soo sheegay, oo markii laga reebo samada aysan jirin waxyaalo badan oo midabkoodu buluug yahay. tusaale ahaan markii xayawaanada la fiiriyo ma jiro shabeel midabkiisu buluug yahay ama dameer ama dabagaale. inkastoo nooleyaasha kala gedisan midab kasta ay ku yimaadaan ayaa waxaa buluug ah nooleyaal fara ku tiris ah. bal xataa waxay saynisyahanadu sheegeen in inta la og yahay hal nooc oo balanbaalista ka mid ah oo ku nool Latin America ay buluug tahay. balanbaalistaas kaliya ayaa samaysa midabka buluuga oo rasmi ah oo midabka baalasheeda qayb ka mid ah ay buluug yihiin. taas macnaheedu maaha in noolayaal kale oo buluug u muuqda aysan jirin, laakiin buluugoodu maaha buluug ay jirkooda ka dhex sameeyaan. oo haddaad aragtay CD-ga waxaa ka dhex arki kartaa midabo badan oo hadba dhinaca ka fiirisid ah. waxaa arrintaasoo kala sameeya noolayaasha tirada yar ee midabkoodu buluuga u eg yahay, sida balanbaalistan oo baalasheedu u samaysan yihiin markii mikroskoobka lagu fiiriyo aad moodaysid inay ilka yaryar yihiin, taasoo markuu iftiinku ku dhaco ay buluug u ekaanayaan. marka xataa noolayaasha buluuga u eg oo shimbiraha qaarkoodna ka mid yihiin ayaan badnayn, waana waxa keenay in midabka buluuga laga waayo luqado hore u jiray. faraacintii Masaarida ayaa iyaga la sheegay in midabka buluuga yaqaaneen maadaama ay maado buluug ah samayn jireen oo wax ku sawiri jireen. haddaba tijaabo lagu sameeyey qabiilad Afrikaan ah oo la dhaho Himba oo degan Namibia ayaa lagu ogaaday arrin yaab badan. qabiiladan ayaa midabka buluuga iyo cagaarka hal magac u taqaan, laakiin cagaarka naftirkiisa dhowr magac ayay u taqaan oo sida uu cagaarku u kala khafiifsan yahay ayay magacyo kale u taqaana. haddaba waxaa laga qaaday qabiiladan tijaabo oo waxaa la soo hordhigay midab cagaar ah oo uu ku dhex jiro buluug. way ku adkaatay inay soo saaraan midabka buluuga ah, laakiin markii la soo hordhigay hal cagaar oo ka khafiifsan cagaarada kale, isla markiiba waa garteen cagaarka wax yar ka duwan cagaarka kale, inkastoo dadka badanaa ku adag tahay cagaarkaas inay ka soocaan cagaarka kale. laakiin midabka buluuga ah isla markiiba la soo saari karo, halka ay qabiiladaasi ku adkaatay inay soo saaraan. arrintan ayaa waxay saynisyahanada u caddaysay in markii luqad ay erayo kala duwan u yaqaanaan midabada, taasi ay fududayso kala soocitaankooda oo dadka luqadaas ku hadla ay si fudud u kala sooci karaan midabadaas. markaan u soo noqdo Soomaaliga ayaa waxaa laga qoray daraasado la xiriira magacyada midabada ee luqadda Soomaaliga iyagoo tixraacaya qaamuus af Soomaali iyo Ingiriis oo la qoray 1897. qaamuuskaas iyo kitaab kale oo naxwaha af Soomaaliga laga qoray 1905 oo qoraagii qorayna la oran jiray Kirk, waxay ku sheegeen in midabada madowga iyo cadaanka iyo guduudka iyo cagaarku ay ka mid ahaayeen magacyada ay midabada Soomaalidu u yaqaaneen. daraasad la qoray 1990 ayaa tilmaamtay in 6 midab oo asaasi ah ay Soomaalidu leeyihiin oo kala ah madow, cadaan, guduud ama casaan, cagaar, jaalle ama huruud iyo buluug. jaallaha iyo buluuga inay xilli dambe Soomaaliga ku soo biireen waxaa ku cadaynaysa in luqado ajnabi ah laga soo qaatay. oo jaalle waa Talyaani, inkastoo midabkan magacyo kalena loo yaqaan sida cawl ama huruud. midabka buluugana waa English ama Talyaani. daraasad ay jaamacad Mareykan 2016 ku samaysay Soomaali Mareykanka joogta ayaa waxay soo bandhigtay in badankood ay magacaabi kareen 12 midab. intaas ayaan noogu joogo barnaamijkii maanta. intii aan mar dambe kulmi doono nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi.